SATG runs rigorous testing prior to the dissemination of technologies. Over the years, SATG has introduced many different crop varieties, including dwarf papaya varieties, early maturing cowpea and mung bean varieties. Also the testing of various forage species such as Sudan grass, alfalfa, Rhodes, Napier, and Dolichos grass. These forage species have all sparked much interest amongst local and commercial farmers. However, before introducing these new varieties, SATG conducts soil analysis to determine the nutrient levels of soils in major areas of Somalia, and thus has confirmed deficiencies in phosphorus and nitrogen. To compensate for these shortages, SATG applies its technical expertise to calculate the proper rate of application of DAP and urea fertilizers. Apart from soil analysis, other forms of technology testing SATG has introduced are drip irrigation, manure composting and rates of application, soil steaming, and also the testing of natural pesticides readily available in Somalia, such as neem oil. And finally, for SATG, good agricultural practices have always played an important role in the dissemination of technologies. The secrets of SATG's success are many. Before engaging in any agricultural development, SATG mobilizes and consults with community leaders and elders, discussing with them various agricultural opportunities they would like to introduce in the region, thus initiating this bond of respect and transparency. We've been working through local people. Okay, we have very strong partnerships with local farmers and with local extension staff and with the Ministry of Agriculture. Because if you come in and you want to work in a country, you've really got to establish a network with the local organizations. And SATG has been very effective at doing that. And so what we're finding increasingly, as people see the results that we've been able to achieve on the ground, they're coming to us now for advice and to work with us to help them in their work. So we really have a true partnership with an ever-expanding base on the ground. Demonstration plots are also a key to SATG's success. Here, local lead farmers willingly lend a portion of their farmland to SATG while continuing to farm using their traditional methods. The results then show clear and tangible comparisons, confirming how much more yield SATG manages to harvest using modern methods versus the farmer's traditional approach. The results are mind-blowing to the farmer, and in no time they have full conviction with SATG. Apart يعني markii laga saaro international organizationska waxaa kaloo si toos ah wada shaqeynaa hay'adaha maxalliga ah sida jaamacadda Banaadir oo kale jaamacadda Camuud oo kale iyo macna NGO-yada Soomaaliya ka howlgala agro dealerska business community-ga waxa waaye inay noqdaan wax isku xiran macna tijaabo iyo farsamo la tijaabinayo kaliya wax ma anfacayso farsamadii haddii la tijaabiyo la arko in ay noqon karto wax laga macaasha waa inay jiraan dadkii businesska community-ga ahaa ama agro dealerska ahaa ama seed producerska ahaa ama farm machinery-ga ku shaqo lahaa inay ayagana socodsiiyaan in waxa kateenadaas inay isku xiranto ayaa loo baahan yahay sidii horumar dhaqaale oo wadanka loogu gaari lahaa oo loogu bixi lahaa abaarooyinkan
oo loogu bixi lahaa mataqaanaa dhibaatooyinka maanta beeraleyda haysta. il waxay aragtaa la dhahay ilaal maka dhan waxaan rabnaa micnaha ama aan codsanaynaa ama sad aan ka codsanaynaa in micnaha ay tababarkii micnaha noo kordhiso. waxaan arki jirin ayayna tuseen tacab oon weligaana arkin oon aabbahayna tusin hooyadayna tusin abkoogayna tusin ayayna tuseen. wixii anaga ektar aan ka heli jirnay duweelku inaan ka helnay ayaan idin sheegaynaa. waxaan shalay arki jirin amba haysan jirin ayaa maanta isoo dirseen. ilaahay xaggiisayna ka timid saad xaggeedayna ka timid. marka duwaalihii waa ka guulaysanay sidii oo ektarkii wax ka bixi jiray iyo haddeer wax naaga baxo wax isu dow ma ah. saad haddii timid sabuulka waa kana hal loo reebo haya tacab unika kantaynin ayayna tusti. waa la wadaa hawsha wax joogsanayna ma aha inaan sii badinimaan wax uu gadaal agana qamaynana insha allah ma aha. marka weliba waxaan ka sii jeclaan lahayn talaabta hadda meeshay taagan tahay in yacni dhanaal sii dhaqaajiyo hore loo sii dhaqaajiyo. anigana waxaan rabaa wixii aniga aan dhalay cumrigaasaan jiraa inaan tacabkaas hadda ka dambe inaan tuso seed i tusto. abuur baa loo dhiibay beer baa lana siiyey abuur samaysan waan wada abuurnay waanoo soo baxay maasha allahu kacana hadduu anoo toos abuurkii. waxaan rabaa wixii gadaashayna jiro taaj inay gacanta ka qabato jabbaluul dhan gacanta ay ka qabato. waxaan aad iyo aad aan u hamiyey inaan hay'adda saad waxyaabaha ay u qabahayso ummadda oo ah sida beeraha kaale arag beerihii oo dhalkooda ahaay halkii jibaal meeshii 3 loor 4 loor ka dhalaysay ektarkii ayaaba jibaalkii ka dhalaay 3 loor ii bar laana dad wax soo bartay oo ummaddii wax u qabahay ayaa noo yimid anagana inaan ka faa'iidaysto madaxeeda ayaan ugu tagay hay'adda aan macnaha u weydiistay in anigana wax ii qabtaan.